بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. waxaynu maanta boogaynan ku garfay doonaa booga la magac baxay tirarka iimaanka oo uu qoray ustaad Saalax Cawad Cali. Sintaan ka warqabo qoraagu waxa uu leeyahay ilaa 3 boog, mid waa turjumaan, labana waa curis weeyaan, mid waa siyaasadda gumaysiga, iyo boogan tirarka iimaanka hadda aynu gacanta ku hayno, iyo boog ka soo turjumay sheekhay ayaantii barihii dhawaato dhintay Qardaawi oo la dhaho dawladda islaamka. qoraagu boogan wuxuu isbarbar dhigi doonaa diimaha samaawiga, waxaana uu u soo gudbinayaa qaab sheekafaneeda oo uu ku matalayo macalin iyo galaas. waxyaabaha uu boogan uu la gaarkay waxa kamid ah inuu ku soo bandhigayo qaab farshaxanimo ama qaab casri ah afkaartii kala duwaneyd diinta islaamka ka soo horjeeday iyo waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin diimaha samaawiga kale sida Tawraad iyo Injiil ama say hadda loo yaqaano Yahuud ama Kiristaanka. waxa uu sidoo kale mararka qaar kaga sheekeynaya booga dhexdiisa diimaha kale sida Buddhismka. boogan waxa uu ka kooban yahay 15 ciwaan, waxa uu ka kooban yahay 335 boog. 335 boog waxa akhriskiisa runtii ka daalimaysid. qaybta uu ka hadlayo ama oo diimaha ah nawaabugu noqon karo bafur oo laga faa'iideysan karo waxyaabo fara badan. boogan waxyaabaha uu ka warramaya waxa kamid ah nabiyadii, waxa uu ka warramayaa alle iyo say diimaha ay u kala aaminsan yihiin, waxa uu ka warramayaa bilowgii abuurka Xaawiye Aadam, iyo waxyaabo badan oo Quraanka iyo Tawraad ay isku khilaafeen ama ay ku khilaafsan yihiin. waxyaabahaas waxa saldhig u ah bedelidii la bedelay ay Yahuudi diintooda bedeshay, oo Yahuudi asalkeeda waa diin xilliyadii hore la faafi jiray balse imika aan aad u faafin oo imika isir ku salaysan. waqtiyadii hore aad bay u faafi jirtay diinta Yahuudu, balse waxa hor istaagay Roomaankii iyo Beershiyaankii kadib markii cadaadis badan la kulmeenna waa ay joojiyeen diinta Yahuudu. intaa kadib waxay isu bedeshay diinta Yahuud isir bay isu bedeshay. wixii ka dambeeyayna waynu ognahay oo waa la bedelay. boogan runtii qaabkan uu qoran yahay iyo marka loo eego mawduucan uu ka hadlayo sida uu u fududeeyay waa qaab aad iyo aad u fiican. qof kastoo doonaya inuu diimaha wax ka ogaadana ay tahay inuu akhriyo ama ay furug noqoto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.